munaasabadan oo ujeedkeedu ahayd sidii ay ugu wada shaqayn lahaayeen wasaaradaha tamarta iyo biyaha iyo wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta iyo bulshada ku nool degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir dhinacyada isdhaxgalka bulshada ka qayb qaadashada horumarka bulshada Soomaaliyeed kaasi oo soo qabanqaabiyay maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Umar Shariif Mayajeeg ayaa ka warbixiyay muhiimadda munaasabadan ay u leedahay maamulka iyo bulshada ku nool degmada Xamarweyne waxaan ku dadaali doonaa inay Xamarweyne sidii waagi hore ahaan jirtay gooyaha biyaha habeenka lagu dhaqi jiray jidadkeeda in lagu dhaqi doono ee laga bixi doono wasaaradda dhibaatada hadda ka jirta gudoomiyaha dhinaca arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Jaketi oo ka hadashay goobta ayaa u soo jeedisay bulshada ku nool degmooyinka gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Xamarweyne inay ka shaqeeyaan horumarka degmooyinka sidii loo horumarin lahaa caasimada qof kasta mas'uul ah qof kasta muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool degmadiisa waa inuu ka warqabaa gobolka Banaadir kaliya ka jiro gobolada dalka kama jiro dadkooda yaa ilaashado wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Cismaan Libaax Ibraahim ayaa kula dardaarmay bulshada in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo isdhaxgalka bulshada dawladdu waxa u qorshaysan in qof kasto muwaadin ah Soomaaliya inuu helo biyo nadiif ah oo jaban inuu helo qof kasto oo muwaadin ah Soomaaliya inuu helo koronto jaban oo raqiis ah ma aha hoteelada iyo dadka ganacsatada iyo dadka madaxda oo kaliya inay koronto helaan ma aha ujeedada dawladdu waxa waaye dadka tabartayno inay koronto helaan wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska iyo guryeynta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdifataax Ibraahim Geesi iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagarayn ayaa ballan qaaday in ay xoogga saari doonaan horumarinta tamarta iyo biyaha iyo howlaha dib u dhiska dalka inaan si wajkii soo celinno oo biyaha degmada Xamarweyne degaayay in maaragtay badda lagu daro sidii looga shaqayn lahaa insha Allah taala gobolka Banaadir iyo degmada Xamarweyne iyo wasaaradda howlaha guud shaqada ay waajibka ay ka leedahay biyo fariisigaas iyo wadooyinkood dib loo hagaajiyo ilaahay idinkiisa waa ka gudanaynaa baahiyo badan baa jiro oo gudoomiyaha degmada iyo maamulka degmada iyo dadka una tusay oo degmada Xamarweyne ay qabto wasiirkii ugu horreeyey xildhibaanadii la sheegay iyo wasiiradii runtii annagaa u yeernay wasiirka howlaha guud waxaan ugu yeernay u martiqaaday waxay ahayd baahida ugu badan oo taalla Xamarweyne yaa waxay ka mid tahay shaqada howlaha guud dhismaha laamiyada furitaankii iswiijyada iyo biyaha ay marayeen sida hadda meeshaan la kusoo kale inkasta oo gudoomiyaha degmada shaqo fiican ka qabtay uu ku amaanan yahay dhawaan ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya golihiisa wasiirada uu faray inay booqdaan isla markaana ay ka shaqeeyaan isdhaxgalka bulshada degmooyinka gobolka Banaadir Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed